guddiga nabadgelyada ee gobolka Sanaag oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse Axmed Istaber ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee degmada Celaf Weyn oo ay saaka ka dhaceen rabshado aad u kooban taasi oo ay sababtay dil shalay ka dhacay deegaanka Qaloocato ee degmada Celaf Weyn oo ay geysteen ciidanka birmadka ee degmada Celaf Weyn gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka Sanaag in isku dhacani saaka uu sababay in 8 askari oo kamid ah ciidamada qalabka sida ay dhaawacmaan isagoo sidoo kale gudoomiyuhu sheegay in kiiskaasi hore u dhacay ee marxuumkaasi ku baxay ay xidheen guddiga nabadgelyada ee gobolka xubnaha ku sugan degmada Celaf Weyn dhacdo ka dhacday shalay toole deegaanka Qaloocan ilaa Xasliinta u dhaxaysa taasoo uu ku dhintay allaha u naxariistay marxuum Abubakar marxuumkaas oo geeridiisu sababtay inay xoogaa shaqaaqa ahna maanta Celaf Weyn ka dhacdo ugu horreyn waxaan u tacsiyeynaynaa eheladii marxuumkaas waxaan leenahay ilaahay u naxariisto ehelkiisiina samir iyo iimaan saadaqa ha ka yeelo sida caadiyana marka dilalku dhacaan ciidanka booliisku waxay sameeyaan baadhis hordhaca baadhistaasoo lagu qaado tallaabooyinkii markaa la gudboon annagoo dhammaantii hareeraha ka wada taagan guddi nabadgelye ahaan kiiska ilaa xalay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag wuxuu ku jiray baadhistiisii waxaa wax laga qorayay dhammaan goobjoogayaashii baadhistaasoo aanu saaka 5 subaxnimo Ceerigaabo annana kaga soo kallahnay naloogu soo bandhigay sida ay u dhacday go'aankii aanu ka qaadanayna aanu u gudbinay eheladii marxuumka dhintay allaha u naxariistee taasoo aanu ballan u qaadnay inaanu tallaabo ka qaadayno baadhistiina aanu u xidhnay 3 askari oo ka mid ah 4 askari oo ka mid ah ciidankii meesha marayay oo ahaa intii ugu dhawaa insha Allah bismillaahi kariimna aanu maxaan ku raahdaa wadistiisana aanu ku jirnay waayeelkiina aanu islaaf garanay inay dhacdadaas aanu si wada jira wax uga qabanno mushkilad iyo problem midina ma taagnayn arrintaas oo aan waayeelkii islaaf garanay stagekii meydka inaanu u gudubno baadhistaana arrintaa loo daayo baa niman rabshad wadayaala oo qaska ku talagalay ay bilaabeen inay soo weeraraan qasrigii aanu deganayn qasriga rasaasaan xad lahayn baa lagu furay waxaa ka dhacday dhaawac 8 askari ah oo dhammaan xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaal ku yaala magaalada Ceerigaabo iminka propagandaha iyo dacaayaadka iyo maxaan ku raahdaa wararka aan jirin buunbuunin weyn bay ka dhigeen waxaan u sheegaynaa ummadda ku nool guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland Celaf Weyn anaga ku sugan waa nabadgelyo weeye dhacdadaa dhacday oo aan runtii aad iyo aad uga xunnahay la murugoonayno eheladii ay ku dhacday waxaan u cadaynaynaa inaanu baadhisteedii gacanta ku hayno ciddii hordhaca ahaydna ay u xidhan tahay sababta ay u dhacday iyo sifada ay u dhacday iyo sida uu dhintayna aanu insha Allah bismillaahi kariim soo bandhigi doono haddii Ilaahay idmo dhinaca labaad rabshad walayaasha qaska wada ee doonaya inay dadka kala qaxiyaan ama Hargeysa ha joogaan ama halkan ha joogaan meediyaha ka hadlaya ee maxaan ku raahdaa aan xaaladda halkan taala cabiri karayn warna ka hay ee wardhagoolka doonaya inay ku cabiraan adeer gobolka anaga joogna waa gobolkayagii waa degmadayadii inaanu islaamaha hooyooyinka iyo maxaan ku raahdaa ciyaalka qaxino ugumaanu talagelin maxaan ku raahdaa mana ogolaanayna inay dhibaato dhacdo oo annagana cidna u ogolaanayna inaanu dhibaato maxaan ku raahdaa deegaankan aanu ku samayno la xajaclana annaga ka qabna rabshada aan wadaan iyo siyaasiyan arrimaha ay isu dhex gelinaysaan wallahi inaan Celaf Weyn calan buluuga lagu arkaynin tallaabana waa ka qaadaynaa waa dabagelaynaa wixii waxa waday
waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madax dhaqameedka gaarka beesha marxuumku ka dhintay oo si waayeeltinimo leh oo xilkalsnimo leh aanu iyaga u wada hadalnay arrintiina isla fahanay gorfayn inay isla noqdaan oo aanu isla soo noqonana aanu ku ballanay wax intaa ka baxsan oo siyaasada arrintaa kama ogolin ciidankana asqaastii laysay waa garanaynaa mid walba gurigii uu xabadda ka soo ridayay baanu garanaynaa qofkii uu ahaana waa garanaynaa tallaabo cadna waa laga qaadi doonaa haddii ilaahay idmo sidoo kale waxaan u ducaynayaa dadka shacabka iyaguna wax yeeloobay gabadh baa iyaduna wax yeelada ka mida sida aan maxaan ku radaa warbixinta ku hayo iyaduna waan u ducaynaynaa in ilaahay u fududeeyo dhaawaca ka kiciyo doonaya si gaar ah inaan ugu mahad celiyo maayarka degmada oo intii aanu joognay ama dhacdadaasi dhacday si xilkasnimo leh oo waayeelnimo leh uga shaqaynayay isagana si gaar ah ugu mahadnaqaynaa maxamed mas'uul wararkoonkiiba